Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelka Cooking with Ladna. Maanta waxaan jeclaystay inaan ila wadaago qado macaan oo aad uga heli doontiin, laakiin maanta videogan wuxuu ku saabsan yahay sida loo kariyo meatball suugo loo yaqaan oo aad u jeclaan doontiin. Runtii suugadan baastada nooca aad jeceshahay ayaad ku cuni kartaa. Maanta aniga waxaan jeclaystay inaan ku cuno baasto fino. daawasho wacan asxaabta, hadda howsheeni ayaan bilaabeynaa. Saxan godan ayaan hilibkeygii shishiidnaa kusoo shubtay. Waxaan isticmaalayaa xabad ukun ah sidaad u jeediin. Waxaan ku darayaa oo kale 2 xabo oo toon aan soo tuntay. Waxaan ku daray cumin, 1 qaando oo cumin ah. Waxaan ku darayaa oo kale qaando oo barkeed oo black pepper ah, 1 qaando oo curry powder aan ku daray. Cusbo sidaad u jeediin ayaan ku daray inta afka ku qaadayso. Waxaan soo jarjartay oo kale kamsar caleen ayaan ku daray iyo gobol maxaa la dhahaye basal ah. Hadda waxaan bilaabayaa inaan kulli alaabteyda aan isku walaaqo oo si fiican ingredients ka isticmaalayo dhan ee hilibka si fiican aan isku wada galaan. Haddaad rabtid gacantaada ayaad isticmaali kartaa. Maanta aniga waan ka yara howl fududaystay. Waxaan isticmaalayaa qaando. Sidaad u jeediin si fiican ayaan u walaaqayaa sida kulli wax kasto ay isku galaan. Hadda hilibkeeni waa diyaar. Si fiican ayaan soo walaaqnay alaabteeni dhan. Hadda ovenka ayaan u diyaarineynaa. Haddaad jeceshahay frinjeerka ayaad 30 daqiiqo ku haysan kartaa, laakiin maanta aniga meel ayaan ka degsanahay soo marka alaabteedii ovenka ayaan gashanayaa. Sidaad aragtiin hilibka si yar oo kuskuusan ayaan u soo suubiyay. Hadda baking tray ayaan soo wada saartay. Hadda ovenkii ayuu diyaar u yahay. Ovenka waxaan gelinayaa 350. Waxaan ku hayay ilaa 45 daqiiqo ilaa 1 saac ayuu iigu karay. Waa kana meatball-keeni ovenka ayaan ka soo bixiyay. Sidan ayuu iigu soo baxay. Runtii si fiican ayuu u karay. Badanaa dadka waxay jecel yihiin inay hilibkan ay shiilaan. Aniga maanta waxaan jeclaystay inaan ovenka ku karsado maadaama aan saliid rabin. Sidaad u jeediin hilibkeeni sidoo gudaha si fiican ayuu ooga karay. Hadda waxaan bilaabeynaa suugadeeni ayaan karsanaynaa. Hadda gobol basal ah ayaan bardaawada ku shiilayaa. Waxaan ku darayaa oo kale toon aan soo tuntay. Toonta iyo basasha si fiican inay isugu wada karaan ayaan doonayaa. Basasheeni waa diyaar. Si fiican ayay u shiilmatay. Hadda sidaad u jeediin tomato sauce-keeni ayaan ku shubayaa. Si fiican ayaa soo walaaqaysaa markaas. Waxaan ku daray cusbo oregano ah. Waxyaalaha dhan aan ku darayo insha Allah description-ka ayaan iigu soo qori doonaa. Hadda curry powder sidaad u jeediin ayaan ku daray. Waxaan ku daray oo kale black pepper. Si fiican ayaan isugu walaaqayaa. Hadda waan yara daboolayaa. High ayaan u geeyay sidaad u jeediin inuu si fiican suugadeena noogu shiilmato ayaan rabaa. Hadhow markaad furka aad ka qaadaysid dabka gaabi, haddii kale suugada way kugu dulduuli doontaa. Hadda suugadeeni way kartay. Daboolka ayaan ka qaaday. Dabka waan ka yara gaabiyay
sidaad aragtiin carafta haddaad urin kartiin aad ayaan u jeclaan lahaa, lagama sheekeyn karo. Si fiican oo wanaagsan ayay suugadeeni noogu kartay. hadda sidaad aragtiin in kamsar caleen aan ku daray, in barbarooni guduud iyo barbarooni cagaar aan si yaryar u soo jarjaray ayaan ku daray. xoogaa waan yara daboolayaa intaas inay si fiican isugu yara karto. hadda waxaan suubinaynaa hilibkeenii oo diyaarka noo ahaa ayaan suugadeena ku dhex daraynaa. sidaad u jeediin si fiican ayaan hilibka dhan suugada u qaadsiinaynaa. hadda akhyaarta hilibkeena iyo suugada si fiican inay isku galaan ayaan rabaa. qaando kale inaan isticmaalo. hadda sidaa u jeedin qaandadii ayaan iska soo bedelay. hilibka iyo suugada si fiican inay isugu walaaqno waaye, si aan hilibka uu nooga burburin. soo marka waxaa waaye inaad suugada soo qaadid, hilibka korka aad kaga daadisid ama kaga shubtid sida u taqaanid. hilibka aad ayuu u jilicsan yahay, soo ma rabna hilibka inuu naga burburo. marka hadda dabka xoogaa medium ayaan u geyn doonaa. waxaan rabaa hilibka, maadaama hilibkeeni mar hore noo karsanaa, suugadeenina way noo karsaneed, laakiin waxaan rabaa hilibka iyo suugada xoogaa inay isku yara karaan. sidaad u jeediin suugadeeni waa diyaar. hadda insha allah suugadeeni dabka ayaan ka damin doonaa. waxaan rajeynayaa inaad aad iyo aad ooga hesheen. hadda weel godan ayaan soo qaaday, suugadeeni ayaan weelka ku shubayaa. sidaad aragtiin weli suugada way kulushahay. waa kaasaa suugadeeni waa noo diyaar sidaad aragtiin. hadda suugadeena korka waxaan kaga yara sharaxayaa kamsar caleen oo si yaryar u soo jartay, sidee noogu qurxisa suugada. waa kana suugadeeni waa diyaar. waxaan rajeynayaa inaad suugadan ama suugo la mid ah inaad reerkiina la wadaagtiin. runtii aad ayaan u jecelahay inaan la wadaago cuntooyinka nooca sida aan u karsado. insha allah waa inoo mar kale iyo cunto karis with Latna.